assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waa qaybteennii labaad ee barnaamijkii aynu maalinimadii shalay samaynay kuna saabsanaa Emmanuel Inwode oo ahaa ninkii Nigeriyaanka ahaa ee iibiyey ayriboorka aan jirin kuna qaatay $240 milyan. haddii aad tahay daawadahan qaybtii koowaad daawan fadlan soo daawo qaybtii koowaad si ay qaybtani dhadhan kuugu yeelato iyadoo linkiyana waxaad ka arki kartaa muuqaalkan hoostiisa. Sakakuji guddoomiyihii bangiga dalka Baraasiil waxa uu noqday mid aan wax hadal ku soo celin karin kooxdii tuugada ahayd ee Nigeriyaanka ahayd ee iyagu sheeganayay inay ka socdaan dowladda Nigeria. waxaana uu sanadkii 1995 bilaabay lacag bixintii laga doonayay. xeerka bangiga uu guddoomiyaha ka ahaa waxa uu ahaa mid ogolaa in guddoomiyuhu uu bixin karo wixii ka yar lacago $6 milyan ah, waxayna ku ballameen $3 milyan lacagta inuu u bixiyo. sidoo kale waxay ku ballameen inaanay lacagta ogaan guddiga kale bangigu, taasuna waxay uga baahnaatay inay isticmaalaan bangiyo kala duwan kuna kala yaala dalalka Maraykanka, Ingiriiska, Switzerland iyo Hong Kong. intii u dhaxaysay 1995 ilaa 98 oo ay dhamaatay lacag bixintii ka badnayd $242 milyan, waxay isticmaaleen bangiyo ka badan 17 bangi. Sakakuji waxa uu ahaa mid ku qanacsanaa in ninkan waxa uu sheegaya uu run yahay. $3 milyan oo walba uu bixiyana waxa uu ahaa mid ka helaya cadaymo uu islahaa oo kuwa ka yimid dowladda Nigeria. daawadayaal hawshan waxaa si weyn u fududeeyay dowladaha dalalka Baraasiil iyo Nigeria, maadaama ganacsiga caalamiga uu yahay mid ka mid ah diblomaasiyadda loogana baahnaa dowladaha safaaradaha ay isku leeyihiin inay markeeda horeba arrimaha noocan oo kala baaritaan ku sameeyaan. dadyow badan oo inaga mid ah waxay rumaysan yihiin safaaradaha in fiiso oo keliya loo doonto, balse hore barnaamijkeenu u samaynay waxaanu idinkula wadaagnay safaarad inaan la odhan dhismaha lagu shaqeeyo, safaaradiise ay tahay dadyow dal kale u jooga danaha dalkooda, waxayna u kala baxaan qaybo aad u fara badan. waxaana ka mid ah qaybo ganacsiyada u fududeeya dadyowga doonaya dalka ay matalayaan inay hanti gashadaan. sidoo kalena waxay u fududeeyaan dadyowga dalka ay matalayaan u dhashay haddiiba ay dalka uga baahdaan shirkada inay ka furtaan. haatan adduunka aynu ku noolnahay waa mid halisa. shirkadaha waaweyn iyo kuwa yaryarina maaha kuwa ganacsi iskala bilaaba dadyow dalal kale u dhashay iyagoo aan sii marin wasaaradooda arrimaha dibadda, markeedu horena aan la samayn wax baaritaan ah. Emmanuel Inwode iyo kooxdiisii waxay heleen lacagahoodii. lacagahaasuna ma ahayn kuwo ay ku ciyaaraan, waxay u maarayeen sidii ugu wanaagsanayd, waxayna isku dayeen inay qariyaan lacagtan iyo raadraaceeda. lacagahaasu waxay ahaayeen kuwo ay bangi iyo bangi u kala diraan, dal iyo dal. ugu dambayna lacagahooda waxay hanti gashadeen dalkooda oo ahaa mid aanay cabsi uga qabin in reer galbeedku ugu yimaado lagana soo qaqabto. hantiyihii ugu badnaa waxay gashadeen guryo iyo dhismayaal. sidoo kale waxay hanti gashadeen beero waaweyn oo ku yaala dalka Nigeria, waxayna tuureen dhiishii fakhriga. khiyaamadii laga khiyaamay bangiga ku yaala dalka Baraasiil $242 milyan waxay ahayd khiyaanadii saddexaad ee ugu weyneyd ee ebed bangi la kulmo. khiyaamadanina ma ahayn mid soo baxday ilaa iyo ugu dambayntii bangiga Standard ee caanka lagana leeyahay dalka Spain oo go'aan ku gaaray inuu gato bangiga ku yaala dalka Baraasiil. xilligii ay kulmeen guddiyadii ka kala socday labada bangina, waxaa bangiga Santander uu ogaaday in 3 meelood oo hantida bangigan uu sheeganayo ay tahay mid gacantooda ka maqan. su'aalo fara badan ay guddiyada sare labada bangi iska weydiiyeen lacagaha maqan. ugu dambeyn waxaa loo yeeray Sakakuji oo ahaa guddoomiyihii bangiga si uu uga jawaabo su'aasha ah lacagta maqan iyo cidda ay ku maqan tahay. ugu dambeyn Sakakuji waxa uu ka horqirtay guddiga inuu lacagta bangiga u hantigeliyey ayna ku maqan tahay dalka Nigeria, halkaasoo erboor caalamiya laga dhisayo. durbadiiba guddigii ka socday bangiga Standard oo isagoo ah bangi weyn waxay ururiyeen jiir, waxayna dareemeen inay lacagtaas qaab khiyaana ku maqan tahay. si kastay ahaato bangigaas waxa uu noqday ugu dambeyn mid la wareegay bangigii yaraa, balse qiimo aad u yar kala baxay. waxaana uu bangiga markii uu la wareegay bangiga weyni bilaabay baaritaan ku aadan lacagtaas iyo halka ay ku maqan tahay. waxaa loo xilsaaray guddi heer caalami oo iyagu ah kuwa la dagaalama dhagaraha laga galo lacagaha iyo dhaqaalaha. guddiyadaasuna waxay raadraacyo ku sameeyeen soona ogaadeen in ka badan 17 bangi iyo 4 dal in hore u soo xusnay in lacagaha loo kala diray. ugu dambayntana lacagtaasu ay ku dambaysay dalka Nigeria. dalka Switzerland ayaa waxa uu yahay kan inta badan maamula lacagaha adduunka. baaritaan uu sameeyena waxa uu ku ogaaday in lacagtaasu ay ku dambaysay dalka Nigeria. hanjabaad uga timi bangiyada waaweyn ee dalka Nigeria dalka Switzerland, looguna hanjabay in bangiyadooda la xirayo haddii aanay ka jawaabin bangiyada lacagahaasu ay ku dhaceen ciddii iska lahayd. ugu dambeyn bangiyada kala duwanaa ee dalka Nigeria waxay farta ku tilmaameen
Emmanuel Enwode, balse dowladda Nigeria xilligaa ma ahayn mid iska leh kooxo loogu talagalay inay lacagaha soo samata bixiyaan dibna ugu soo celiyaan dadyowgii iska lahaa, waxayna arrintu u muuqatay inaanay reer galbeedku waxba ka qaadi karin shakhsiga iyo kooxdiisii. 4 sannadood dowlad cusub ayaa ka dhalatay dalka Nigeria. Madaxweynihii xilligaa qabsadana waxa uu ballan qaaday inuu la dagaalamayo dadyowga reer Nigeria iyo dadyowga adduunka lacagaha ka dhaca. Ugu dambeyn dowladda Nigeria waxay gacanta ku soo dhigtay Emmanuel Enwode, waxaana lagu xukumay xabsi 25 sannadooda. 2021 ayaa xabsiga laga soo daayey. Sanadkaas dib ayaa looga yeeray maxkamad ku taalla magaalada Abuja, waxaana loo haystaa dembiye kale oo uu galay intii uu lacagta haystay. Dembiyadan loo haysto ayaa waxay yihiin kuwo u badan dhulboob uu sameeyey. Ugu yaraanna intuu dembiyada ku jiray waxaa ku geeriyooday hal askari oo boolis oo ka tirsan booliska dalka Nigeria, waxaana la filayaa dhowaantan in xabsi kale lagu xukumo. Isku soo wada duubo, Emmanuel Enwode waxa uu noqday mid ku guulaystay inuu $242 milyan oo dollar ka qaato dowladda Brazil, oo iyadoo ah mid lagu sheego inay tahay dowladaha adduunka ugu horumarsan. Sidoo kalena waxa uu khiyaamay bangiyada ku yaala dalalka kale ah Maraykanka, Ingiriiska, Switzerland iyo weliba Hong Kong. Daawada waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad inoo like garayso inoona sii share garayso. Haddii aad tahay daawade aan weli kanaal ku soo biirina nagu soo biir si aad u daawato muuqaallo midba uu ka sarreeya kan uu ka dambeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.